السلام عليكم saaxiibayaal. Waa qaybtii afaraad ee sheekadii Nebi Maxamed sallallahu calayhi wasallam. Haddaba markii Nebi Maxamed sallallahu calayhi wasallam ay hooyadiis dhimatay isagoo oo 6 jir ah ayaa waxaa soo kaxeeyey awowgiis Cabdilmutalib. Awowgiis markii uu hayay 2 sannadood ayaa waxaa u timiday geeridii oo uu dhintay. Laakiin intii aanu dhiman ka hor ayaa wuxuu ku dardaaray oo uu kaga tegay wiilkiisa Abu Taalib. Sidii ayuuna adeerkiis Abu Taalib ku hayay Nebi Maxamed sallallahu calayhi wasallam. Abu Taalibna wuxuu ahaa saxaabiga Cali bin Abu Taalib aabihiis.